soo dhawaada saaxiibayaal waxaan idin wadaagayaa xogtii wararka ugu dambeeyay dagaalka saaka ka dhacay Suudaan kaasoo militariga Suudaan ay kula wareegeen gacan ku haynta madaxtooyada taasoo in muddo ah gacantooda ka maqneed militariga Suudaan. Soo dhawaada saaxiibayaal haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe channelka siina share garay like na saar aad iyo aad u mahadsantahay. ciidamada Suudaan ayaa maanta dib u qabsaday qasriga madaxtooyada ee dalkaas taasoo in muddo ay gacanta ku hayeen ciidamada gurmadka degdega ah ee RSF ee loo yaqaan caloosha u shaqeystayaasha. xarunta madaxtooyada ee ku taal bartamaha Khartoum halkaas oo ay sidoo kale ku yaalaan inta badan wasaaradaha dawladda iyo hay'adaha maaliyadda ciidamada ayaa ku sii siqay maalmaha la soo dhaafay kadib dagaallo qaraar oo ay la galeen xoogagga ka soo horjeeda ee RSF. talaabadan ayaa loo arkaa guul taariikhi ah maadaama qabashada qasriga madaxtooyada uu leeyahay muhiimad weyn oo taariikhi ah iyo mid siyaasadeed. Nabiil Cabdullaahi oo ah afhayeenka ciidanka ayaa TV-ga dawladda ka sheegay in militariga la wareegeen xaruntaasi iyo dhismayaasha wasaaradda ee aagaasi ku yaala. muuqaallo iyo sawirro lagu baahiyay baraha bulshada saacadihii la soo dhaafay ayaa muujinaya askar aad u faraxsan oo qoryahooda lulaya sameynayana farxad iyo reereyn iyagoo u muuqday kuwa xamdi naqaya. RSF ayaa weli kasii dagaalamaysa qeybo ka mid ah magaalada laakiin dib u qasashada qasriga madaxtooyada oo noqonaysa guul istaraatiiji ah ayaa sidoo kale loo arkaa astaan muujinaysa u dhamaadka RSF ee gacan ku haynta magaalo madaxda. ciidanka gurmadka degdega ah ayaan weli wax war ah ka soo saareen Khartoum waa goobtii uu ka bilowday dagaalka sokeeye ee markii dambe ku baahay dalka intiisa kale. bishii Abriil ee sanadkii 2023 markii ay kooxaha RSF ay si degdeg ah u qabsadeen xarunta madaxtooyada inta badan caasimadda dalka Suudaan. waqti yar uun kadib markii uu dagaalka qarxay kadib ciidanka Suudaan oo hubeysan ayaa dhowrkii bilood ee la soo dhaafay dib ugu soo laabtay iyagoo ku soo dhawaanayay madaxtooyada kuwaas oo ku socda webiga Niil. xooga ka amar qaata jarnaal la yiraahdo Maxamed Xabdan Daqalo ayaa gacanta ku hayay magaalada caasimadda iyo inta badan galbeedka dalkaasi tan iyo markii uu dagaalka qarxay. dadka dagaalka ka faallooda ee Suudaan ayaa u arka talaabadan in ay tahay mid muhiim u ah colaadda sokeeye ee dalkaasi ka taagan in muddo ah. tani waxay noqon kartaa waqti muhiim u ah dagaalka sokeeye ee arxandarrada ee Suudaan laakiin ma joojin doonto 2 sano oo colaad ah ayaa abuuray dhibaato bini'aadantinimo oo aad u weyn waxayna dalka u kala jebisay 2 qaybood oo u dhaxeeya aagaga ay ka taliyaan ciidanka RSF. muuqaal laga duubay Sabtidii hogaamiyaha kooxda caloosha u shaqeystayaasha RSF Maxamed Daqalo ayaa waxa uu ku sheegay inay difaacan doonaan madaxtooyada isagoo sidoo kale ku goondiyay weerar hor leh oo ka dhan ah magaalooyin dhowr ah oo dhaca waqooyiga dalkaas. colaadda u dhaxeysa ciidanka iyo xoogagga gurmadka degdega ee RSF ayaa galaaftay 10,000 oo qof malaayiin kalena waxa ay ku qasbeen in ay guryahooda ka barakacaan iyadoo macluusha ay baahday tan iyo markii dalkaasi uu cagaha la galay dagaal sokeeye.